حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. tilmaamta saddexaad walaalayaal waa xusnu khaliiqa. dhaqanka wanaagsan walaalayaal waa min acdami alcibaadaat, cibaadooyinka ugu waaweyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado. wuxuu nabigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh: maa min shayin shay ma jiro athqala fii miisaani lmu'min, ruuxa mu'minka ah miisaankiisa kaga culus maalinta qiyaamaha min xusni alkhuluq. dhaqan wanaagsan iyo dhaqan suuban wax kaga culus ma jiro miisaanka ruuxa mu'minka maalinta qiyaamaha. nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa la weydiiyey waxa ugu badan aan idhaahdo ee ay dadku jannada ku galayaan noo sheeg ayaa la weydiiyey nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. wuxuu nabigu yidhi: taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq, waa alle oo laga cabsado iyo akhlaaqda wanaagsan. wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam: inamaa bucithtu liutamima saalixa alakhlaaq aw makaarim alakhlaaq. waxaa la ii soo saaray buu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam inaan dhaqankaa suuban iyo akhlaaqda wanaagsan dadka ugu baaqo oo aan dhammaystiro. amiiru shucaraa axmed showqi waxa uu leeyahay: wainama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fain humuu dahabat akhlaaquhum dahabuu. ummaduhu waxay ku dhaqmaan oo ay baaqi ku sii ahaadaan oo ay ku waaraani waxa weeyaan waa akhlaaqda suuban. fain humuu dahabat akhlaaquhum dahabuu, haddii ay akhlaaqdoodaasi tegto oo dhaqan guur ku dhaco, ummaddaasi waa umma tegtay. ummadaha akhlaaq baa dhaqdoy abid ku waaraan marka ay adaabto tegtay gebi aguugaan. waidaa usiiba alqowmu fii akhlaaqihim faaqim calayhim ma'taman wacawiila, haddii ummad laga asiibo dhaqankooga oo uu ku dhaco dhaqan guur, faaqim calayhim ma'taman wacawiila, ummaddaasi waa ummad iyada iyo ciddii dhimatay ay isku mid yihiin.